ayadoo dhawaan la filayo in deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ay ka qabsoonto doorashooyinka xildhibaanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay soo gaaray xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa magaalada Baydhabo si diiran ugu soo dhaweeyay oo ugu horeeyay agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Watiin iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socota gobolka Baay guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maalimahan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka uga socday tababaro ku saabsan habraaca doorashooyinka iyo qaabka ugu wanaagsan ee deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ay u qabsoomi lahayd doorashada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sanada 2020 iyo 2021 ayadoo la raacayo heshiisyada iyo habraaca lagu heshiiyay doorashooyinka waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Watiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo waxaa intaas kadib loo galbiyay xarunta nasiiyada garoonka Shaatigaduud International Airport ee magaalada Baydhabo waxaa ugu horeyntii goobta ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Watiin oo goobta ka hadlay soo dhaweeyay xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya doorashooyinka oo federaalka oo heer state oo geedka magaalada Baydhabo dib aan ka nagaden marka meedan ka faraxsana maraysiin una iyo dhawaayna elborka Shaatigaduud airport iyo in badan maraysiin howl badan kama qonay magaalada Muqdisho howlahaas oo bata bariyo maraysiin barnaamij badan isku jiraan iyo magaalada Muqdisho may baan kama qonaayeen deegaag may baan suurta gaar may baan dib aan ka nagadan magaalada Baydhabo si may baan maraysiin biladan howlaha may baa caadiga hay marka insha Allah ma rajayna kulli dabcan shaqo badan sugayd oo iidan adag sugayd insha Allah ilaahay ma ka togan ma baan shaqada ma baa ilaahay la garab gala waana tumay baa insha Allah nagad ma baa dhaxal gala insha Allah mustaqbalka nagad oo meedan ka faraxsan ma baa inuu dib aan ka dhawaayna magaalada Baydhabo si ma baa howlasho iyo wajibaasho ma baa insha Allah iyo guudan marka insha Allah guula ma baa rajayna insha Allah waan wala shaqo ma baa insha Allah gadaal ma baa dhimantaan soo waraysan doona marka idida ma santiin gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleed koonfur galbeed ahna kusimaha gudoomiyaha guddiga Nuuridiin Ibraahim Aadan ayaa sharxay ujeedka safarkooda iyo howlihii u soo qabsoomay ugu horeeyo agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed saaxiibkay Cabdullaahi Watiin marka xigta waxaan jeclaan lahaa inaan idin la wadaagno xog badan laakiin gadaalayno waxaad doontaa inta ugu muhiimsan hordhac hadda idinkugu sii sheego guddigu wuxuu u yimid inuu guto waajibaadkiisii qaran ee loo igmaday ee ahaa doorashooyinka hirgelintooda 2020-2021 oo heer federaal ah insha Allah guddigu wuxuu bilaabi doonaa howlihii shaqo maalmaha ee soo aadan wuxuuna ku dadaali doonaa sidii loo soo saari lahaa xildhibaano tayo leh quality leh dadkii deegaanka iyo ummadda guud matali kara qaasatan koonfur galbeed xildhibaanada kaga aadan oo noqon doona labada aqal ee baarlamaanka ugu horeeya aqalka sare oo ku xog golaha shacabka Soomaaliyeed insha Allah guddiga wuxuu qaban doonaa howshiisa qaran sida ku cad dastuurka iyo habraacyada iyo heshiisyada la galay waan isku dambeyn doonaa waan isla wada shaqeyn doonaa aadna waan kaga mahad celineynaa kullaytaba waxa weeye shaqo badan baa in dhex mari doonta insha Allah waxaan rajayni doonaa inaan mar kastaba si joogto ah xiriirkeenu u sii sareeyo insha Allah si hufnaanta iyo wada shaqeynta doorashooyinka uu kordho aad u mahadsantihiin wuxuu safar ku ahaa ugu baxay markii la magacaabay kadib magaalada Muqdisho isagoo ka arinsanaya habraacyada iyo tababaro xagga u joogay sidoo kale guddiga wuxuu soo dhisay gudoomiyaasha iyo ku-xigeenadiisa sidoo kale guddiga waxay iska dhex doorteen guddi hoosaadyo oo kamid ahaan doona ka hoos shaqeyn doona guddiga guud marka guddiga sidiisana waxa loo kala qaaday laba qaybood sidii uu dhigay heshiiskii agreementigii 17 September ay ku heshiiyeen madaxda qaranka oo ahaa laba guddi oo midna heer federaal uu yahay midna isteedada laga magacaabay isteedada saa ogtihiin state walba ama maamul kasta
wuxuu soo dirayay 8 xubnood balaas waxaa lagu darayay 3 xubnood oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka imaanaysa. Cabdullaahi Maxmuud Cabdullaahi Faani, telefishinka caalamiga ee Ariel TV Baydhabo.